habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka caawa waxa ugu waaweyn maxaa maanta ka dhacay magaalooyinka Galmudug doorashadii maanta looga dareeray qaar kamid ah deegaanada maamulka Galmudug oo falcelin xoogan ay ka dhalatay waxa rabaa inaan idin wadaago dhacdo kamid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee maanta laga diiwaan galiyay doorashadii ka dhacday maamulka Galmudug dadweynihii dareeray iyo sidoo kale durba gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan oo madaxa kula jiro fadeexadii ugu weyneed muuqaalkan oo ka imaanayo magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya waa wakiilkii xisbiga Sheekh Maxamed Shaakir ee Tawfiiq waxa si toos ah u firdeenayo ciidamada ka tirsan booliiska Soomaaliya kadibna xabsiga ayaa loo taxaabay dhacdan arrin xoogan ayaa ka dhalatay waxa rabaa inaan idin la wadaago sidoo kale waxa daawo doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo kulan degdeg la qaatay qaar kamid ah saraakiil Mareykan ah oo ay hadda ku kulmeen gudaha xindaabka xalane hadaba kulankan maxaa looga hadlay warbixin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa warbixinada iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkan hadii Allah uu qadaro ee soo dhawaada saaxiibayaan aan ku bilaawno wararkeena deegaanada Galmudug maanta waxa looga dareeray doorasho dadweyne oo doorasho qof iyo cod ah iyadoo dadweynihii ugu badnaa ay isugu soo bixeen inta badan magaalooyinka waaweyn ee xurta ah ee maamulka Galmudug dadkaasi oo u kala codeynayay xisbiyada ku tartamayay doorashada maamulka Galmudug inkastoo dhinacyada ka soo horjeedo hanaanka ay wax u socdaan ee aaminsan yihiin in musharaxa lala doonayo maamulka Galmudug haddaba la sii og yahay oo ay dadku qaar ay sheegayaan inuu yahay Liibaan Axmed Xasan Liibaan Shuluq haddana doorashada maanta waxa ay dadka reer Galmudug ay muujiyeen muddo kadib yadadiilada ku aadan in ay codkooda ku cilbaxaan ilaa hadda lama go'aamin karo natiijada doorashada laakiin dhacdooyin kamid ah dhacdooyinkii ugu la yaabka badnaa ee laga soo wariyay doorashadii dhacday ayaa rabaa inaan idin la wadaago muuqaalkan aad aragto oo aan hordhac sidoo kale idin kula wadaagay waa wakiilka xisbiga Tawfiiq ee uu Sheekh Maxamed Shaakir hogaamiyo Sheekh Shaakir si gaar ah hadaan u faahfaahino waa nin saameyn xoogan ku leh deegaanada maamulka Galmudug waa nin culimo ah urur markaasi ahlu sunna wal jamaa hogaankiisa aha Galmudugna madaxii xukuumadda ka soo noqday nin saameyn leh maamulka Galmudug marka la fiiriyo xitaa ololaha marka uu xisbiga JSB uu sameeyay kamid aha ragga iyaguna ama xisbiga kaliya ee waxa uu ahaa marka JSB laga soo tago saameyntiisa si xoogan looga dareemay deegaanada Galmudug laakiin maanta maxaa qabsaday doorashadu waxa muuqatay in aad ay u loolameen labada xisbi ee Tawfiiq iyo JSB taasi waxay keentay inay isku dhacaan wakiiladii Tawfiiq iyo wakiiladii JSB kadibna arinta ay soo fargeliyaan booliiska ninkan oo wakiilkii Tawfiiq ahaa oo xisbiga Sheekh Maxamed Shaakir ayaa toos xabsiga loogu taxaabay siday hadda ku soo waramayaan wararka ka imaanaya magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud dhacdan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinku kama hadleen laakiin hadii ay gudiga arintan ka gaabsadaan waxa ay sii xoojinaysaa eedaha markaas gudiga loo jeedinayo ee ah in aanay madax banaaneen iyadoo oo dhinaca kale tan ay sawir guud ka bixin karto heerka musuqmaasuq ee gudiga laga tirsanaya hadda inkastoo gudigu wali ay baaritaan wadaan oo ay howlahan ku gudi jiraan haddana dad badan ayaa siyaabooyin kala duwan kaga falceliyay hadaba dhacda marka muuqaalka marka daawato oo doorashadii maanta siday u dhacday oo markaad fiiriso iyo tartanka xoogan ee Galmudug ka dhacayo iyo xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud JSB oo loolanka adag kala kulmayo xisbiga Sheekh Shaakir oo nin culimo oo taageero xoogan ka haysta Galmudug markaad fiiriso iyo habdhaqankan laga soo warinayo ciidamada booliiska ee ammaanka doorashooyinka sugay oo u gafayo qayb kamid ah xisbiyadii tartamay sidoo kale tana lagu eedeynay inay u kala hilinayaan laba xisbi oo midna xisbi xaakinka yahay midna xisbi kale oo xisbiyada doorashada u tartamay uu yahay aragtida qaybta faarada ugu reebta laakiin waxa xaqiijinaynaa in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinku dhacdan foosh xun aysan wali ka hadlin aragtida ku aadan hoos noogu reeb madaxweynaha Soomaaliya waxa uu kulan degdeg ah u la qaatay xubno kamid ah saraakiisha dawladda Mareykanka waxaana kulankan uu ku soo aadaya iyadoo oo su'aalo waaweyn ay ka taagan yihiin mustaqbalka howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya waxa sidoo kale xogo kala duwan ay ka soo baxayaan kulankan iyo waxyaabihii sida gaarka ah looga hadlay kulanka waxa goobjoog ka ahaa saraakiil Mareykan ah oo uu ku jiraan iraadi taliyaha ciidanka Africom oo markaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulan gaar ah la qaatay waxay qaada dhigan arrimo badan
dhinaca kale madaxweynaha kulanka waxaa la joogay xubno uu ka mid yahay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya oo isaguna ka qayb qaatay kulankan oo si gaar ah markaasi diiradda lagu saaray arrimaha amniga dagaalka ka dhan al-shabaab mustaqbalka howlgalka AMISOM safarka madaxweynaha ee Kampala iyo qorshayaasha ay dowladda Mareykanka ku taageerayso Soomaaliya maadaama Mareykanku uu ku dhawaaqay in uu joojinayo dhaqaalihii kaga bixi jiray dhinaca saadka ee howlgalka Midowga Afrika dowladda federaalka Soomaaliya dalab ayay hor dhigtay wafdigan oo madaxweynuhu uu la kulmay ee sare ee uu ku jiro safiir ku-xigeenka taliyaha Africom iyo xubno kale hadda wafdigan iyo xubno kale oo weheliyo iyagu dhinaca kale waxa ay safar ay ku tageen dhinaca iyo magaalada Kismaayo iyadoo xogo qaar ay sheegayaan in Axmed Madoobe ay u sheegeen in aysan aqbali doonin in Soomaaliya marxaladan ku sii jirto artada hoos ayaa nugu reebi kartaa warbixinadeena ayaad weli la socotaan daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhinaca kale maanta uu shir gudoomiye kulan aan caadi ahayn oo golaha wasiiradu ay yeesheen madaxweynuhu waxa uu si adag u canaantay xubnihii golaha wasiirada ee kulankaasi goobjoog ka ahaa isaga oo markaasi wax laga xumaado ku tilmaamay dhacdooyinkii foosha xumaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee markaasi dalka Kenya halka oo laga soo celiyay mas'uuliyiin sarsare oo dowladda Soomaaliya ka tirsan sida ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka iyo wasiir dowlaha madaxtooyada Abshir Bukhari kuwaasi oo markaasi dowladda Kenya ay dalka dib ugu soo celisay diidana inay dalkeedu ay markaasi galaan madaxweynuhu halkaasi wuxuu ka muujiyay fariin cara ah iyadoo oo golaha wasiirada qaarkood uu soo jeediyay in kuwa haysta baasaboorka Kenya inay dib isaga celiyaan aragtida ku aadan hoosna wadaab gudaana wararkeena waa inta nabadgelyo